Assalaamu calaykum kusoo dhawaada axlaam cooking maanta waxaan sameynayaa banaana baraar roodhi yar oo fudud aan ka sameeyey muus 3 xabo muus oo jilicsan oo markay macaanaadaana xabo muuska ahaa ayaan diirka ka soo qaadaa halka ku soo riday fargeetadaas ku jabinanaa waa aniga si fiican soo wada jajabiyey kadib subag baan soo diirsanay oo ah 2 qaado kadib waan ku darnay waxaan kala ku daranaa 1 xabo ukuna waxaan kala ku daranaa imikana sonkortii taas waa brown sugar waxaan ku daranaa qaado ah brown sugar iyo 2 qaado oo ah white sugar sonkorta buniga iyo sonkorta cad waxaan kala ku daranaa baking powder maaha baking soda also you can use baking powder ilaa qaadada yar taweyn maaha tayar waxaan kala ku darayaa cinnamon ama qolfo in yarun isagana waxaan kala ku daray vanilla it's option waa iska deyn kartaa waana ku darsan kartaa waxaan kala ku daray wax yar oo ah milix ama cusbo waxaan ku darayaa imikana burka waxaan ku daray koob iyo badh adi 150 gram ayaa kugu filan waxaan kala ku daray in yar oo caano adi 4 qaado caanaha way kugu filan yihiin haddaad macaan saayida doonayso halka markii meel soo chocolate waad ku dhex dari kartaa waad ku dhex daadin kartaa haddii kale sideeda waad ugu shuban kartaa sinxiga ovenka kadib ovenkii baynu gelinay wataa inoo saacsaatay sidaasay noogu soo baxday maasha allah qurux iyo macaan aad bay u jilicsantay aadna way macaantahay muuskuna si fiican flavor-kiisu weeyaan dhammaantiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin fadlan subscribe iyo like basaara aad baad u mahadsantihiin fidyowgeeni maanta halkaas ayuu ku egyahay